وعلى wanaagsan dhamaan akhyaartana daawanaysa email kasto joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxa kamida Cabdirasaaq Khaliif oo gaadiid dagaal u soo iibiyay ciidamada huwanta ah ee dagaalka kula jira ciidamada qaranka Somaliland dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka beesha warsangeli oo ciidankeedii kala baxday dagaalka huwantu ka wada laascaanood iyo kaartada ay warsangeli u dageen ayeen eegi doonaa sidoo kale waxaynu kaga hadli doonaa barnaamijka qodobo kale oo ku saabsan xog xasaasiya oo shaaca laga qaaday ujeedada guud ee Puntland dagaalkan u bilowday oo la sheegay inay tahay dana ganacsi iyo faa'iidooyin ay hadda ku qabto dagaalkaas inuu sii socdo qodobada iyo qodobo kale ayaynu ka rogi doonaa ku soo dhawaada barnaamijka وأنا أنكو بلونا برنامج كأجدومي هراء برلمان كسوماليلان عبدالرزاق خليف أيام معلم با وحاول صبينا يفعل كدرو دي بدالله تاسي أو كسور كدو أما وكدومين يقرن نمد السوماليلان وحاول كدقاقي فالكي ودن بيي أكل وقرن نمد السوماليلان وحيال ذوين وجاي سنة تاسي أو إنه هذا جدي دجال سو إيبيي إذا ماذا هو أنت دجال ككل شيء إذا qaranka Somaliland ciidankaasi oo hadda la sheegay inuu ku wareejiyay laba qabaal oo nooca dagaalka ah iyo waliba gaarigii isagu uu watay oo uu gacanta ka saaray waxaana la sheegay inuu ka huleelay gabi ahaanba markaasi dhulka Soomaalida garowga ayuu ka baxay maanta waxaana la sheegayaa inuu u ruqaansaday dhinaca iyo Turkiga lagama yaabo leedin dib dambe ugu soo noqdo deegaanada Soomaalida guud ahaan ama Puntland ama Somaliland iyadoo markii hore uu rajo ka qabay in madaxweyne ku-xigeen looga dhigi doono Puntland haddana waxa uu hadda markaa soo wajahayaaba leeyahay inuu diidmo ka timid dhinaca Karaash oo markaa diideen xilkaasi wareejiyo haddaba si kasta ha ninka saddexaad ee ugu awooda badnaa Somaliland ahna gudoomiye baarlamaanka maalinta ka dambaysa waxa uu sameeyay ficiladaasi guracan ee uu qarannimada Somaliland ku duumeeyo isagoo markii horena lacagtii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland u dhiibay inuu ku xalliyo arinta laascaanood dib ugu fangareeyay kooxaha xag jirka ah ee huwanta iskugu jirta kooxaha shabaabka iyo kuwa qaabka beeleed u dagaalamaya ee magaca daaroodka isku soo bahaystay kuwaasi oo hadda markaasi ka dhigtay bahala galeen laascaanood oo doonaya markaa in gabi ahaanba laascaanood iyo soo ka gooyaan jamhuuriyadda Somaliland Cabdirasaaq Khaliif ayaa hadaba la sheegaya inuu hadda u ruqaansaday xagga iyo dibadaha oo dagaalka ka soo abaabuli doono isku duwa xagga dhaqaalaha ah ayuu hore u ahaa ururka G21ka markaasi isku bahaystay qaabka beeleeda daaroodka markaa madaxdii hore daarood ay ku jiraan ninkan markiisii horeba 3 sano ka hor baa loo doortay baleeyay inuu noqdo gudoomiyaha xagga isku dubaridka xagga maaliyadda inagoo markaa aan la ogeyn ayaa halkan uu markaa olole ka galay waa lagu soo dhaxdarsaday baarlamaanka Somaliland inuu qas iyo markaa arbush ka dhex sameeyo oo qarannimada Somaliland jilbaha ugu dhufto markii horeba shax la sii dajiyay balay haddaba waxa la yaab leh baarlamaankii Somaliland ilaa iyo hadda talaabo kama qaadin ninkaasi si kasta ugu xadgudbay qarannimadii Somaliland ee xitaa ku dhawaaqay yiri anigu 33 gudida ay magacaawdeen kooxaha markaa kacdoonka ka wada laascaanood ay beeshayda ayaan la fikirahay 33 kuna waxay yiraahdeen anagu Soomaaliyan doonayay Somaliland ma doonayno oo waanu ka soo horjeednaa dawladii marka mowqifkoogan qaatay mar hore u cadeeyay ilaa iyo haddana lama markaasi qaadin talaabo mooshin lagaga qaadayo xilka lagaga xayuubinayo isaguna wuu diidan yahay in xilkiiska casilo waalis casilo yiraahdo af ku dhawaaqo waayo taa laftarkeeda ayaa khalkhalgelin systemkii dawladnimada ee Somaliland lagu khalkhalgelinayo oo markaa kooxo kala abaabulan baarlamaanka u fadhiyo hadii la yiraahdo motion loo qaado in qas iyo qalalaase ay halka ka bilaabantaa loogu tala galay marka sababtu isku casili leeyahay taasi ayaa baa la yiri number 1 ama qodobka koobaad ka ah in qas iyo qalalaase xilka qaadisiisa xitaa ay ku dhalato oo marka Somaliland qaybsan xagga dawladnimada ah
marka baarlamaanku buuqa bilaabmay ee la islaayo ee markaasi kooxii canaasiirtu ku samaystay halka ay dagaal ka abaabulaan taa laftirkeeda ah markaasi jaanis kale oo fidmo lagu abuurayo baa layidhi Somaliland lagu kala qaybinayo ninkan oo haddaba markaa ku howlan marka in qarannimada Somaliland dumiyo ayaa hadda isha lagu haya iyadoo warar xogogaalon helayna ay sheegayaan in mooshin la diyaariyo xilka lagaga qaadayo oo iida kadib marka bisha Ramadaan dhamaatay la soo iida kadib kulanka u horeeya baarlamaanku ay qabsanayaan lagu qaban doono kulankaasi mooshin xilka lagaga qaadayo taana uu ka sii warhayo canaasiirna uu sii diyaarsaday marka qasiya qalalaasa bilaaba si kasta ha ahaato xaaladdu hadda dhinaca kale dagaalka haddii aynu u gudubno beeshii warsangeli ayaa la sheegayaa haatan in si tartiib ah dagaalkii uga baxdayba gabi ahaan beeshii warsangeli qayb kama aha dagaalka hadda socda inkastoo bilowgii markii oodii hore galadii iyo hartiyada lahayay ay markaa ciidamo soo direen oo ay abaabul ka qayb galeen haddana si tartiib ayay uga baxayeen imika waxa la sheegayaa inaanay jirin hal askari oo beesha warsageliyo jooga markaasi laascaanada ka dagaalamaya xitaa maxaabiista boqolaalka ay qabatay markaasi ciidanka qaranka Somaliland ay qabteen hal askari oo warsageli kugu jirin gaari kaliya too warsageli uu leeyahay kuma jirin kulli waxay ahaayeen markaasi majeerteen iyo dhulbaanto haddaba waxa la sheegay inay kaarta la isticmaaleen markaasi nimankaasi markii ay fahmeen in waxa meesha ka socda ay tahay ka waaweyn ah oo yani in kooxa xag jira meesha lagu abuurayo ay tahay ma garatay hawshan socota mid beesha caalamka oo dhan markaasi hadhow toole ay kasoo horjeesan doonto oo fashilmi doonta way kasii warhayeen deedna si tartiib ayay uga baxeen balaydi waxaana la sheegayaa hadda inaanay gebi ahaanba joogin ama laascaanada aanay ku sugnayn hal askari ama hal gaari xitaa warsangeli uu leeyahay oo ka dagaalamaya ma jira baa la leeyahay nimanka haddaba danta ugu weyn dagaalka ku qaba ee faa'iidada weyn in dagaalkaas u dhacana moogtay ay ugu jirto waa nimanka majeerteen oo markaa faa'iidooyin kala duwan iyagu iyo dana dhaqaale oo badan leh qodobka koobaad waxa weeyaan faa'iidada ugu jirta in dagaalka laascaanood u dhaco horta dekedahooga garacad iyo markaasi ta kale boosaasay doonayaan in loo soo jabo oo wixii dhulbaantaa iyo xitaa ogaadeenkii berberixta ka soo degsan jiray kulli in halka u wada go'aan oo markaa dagaalka laascaanood la yiraahdo waa hartiyo daarood baa lagu xasuuqaya buuqa marka la sameeyo in la yiraahdo xagga garacad iyo ku yaaca boosaaso dhaqaalahooga dekedahasi ay u noqdaan mid kor u kacayo wax soo saar badan yeeshay iyadoo moogtay dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay ay fadhiidahay dekeda boosaaso waxba ka soo degi jirin tii cusub haddaba garacadan la sameeyay iyo boosaasadan ayaa la doonayaa in boomin laga dhigo saadarteed bay dagaalka horta u rideen taasina waxa waliba garab boodaya ugaas la wareysanayay aduu laba bilood ka hor meelahaas ay waqtiyadii dagaalka cusbaa ciidamada Somaliland laga saara lahaa moogtay laascaanood lahaayeen ka baxa garaadada iyo xasiyada ismidu hadlayeen haddii dagaal oo dhacana yani sidee bay noqon kartaa laga hadlayay ayaa ugaas ogaadeen oo hadlay in xasuutaan in kale mooyaane channelka SSTV ogaadeen ku leeyihiin ayaa lagu waraystay waxa uu sheegay waqtigaas uu ka dhawaajiyay oo yiri doorow dekadihiida berberi way xirmi buu yiri wajaalan waxba idinka soo degi maayaan gaajaad u dhiman doontaa waxaan anagu u guuri doonaa dekadaha iyaga cidna waxba idinka soo dejisan mayso qodobadaasi haddii aan dib u eegno waxa ahayd mid lasii balangareeyey marka Puntland ay doonaysa dekadahaasi in loogu wareego xalay tolaan waxaan ku xasuustay wasiirka beeraha ayaa lahaa dekedeedii baa xirmay cidba waxba kama soo dejisato uu sii horbooday iyadoo la iskaarinba marka waxa weeyaan inay kaftan ka ahayd iyo moogtay oo saxaafadu marka la xog wareysanaya baarlamaankii ama waxaan goortidii ay mas'uul wareysanayso yani waxyaabaha yara kaftanka la leeyahay xogaha la isasiinayo horta inay sakrad haatay hay'ado hadhowto la saxaafadu loo waramo waayo xitaa kaftankoogii hadalkoogii ay ku kaftamayeen baa saxaafadii soo wada duubtay oo ay soo wada bandhigtay marka hadalkii odayga ugaaskii maalinta lahaayo la dekadiina xirmiyo gaajeedu u dhiman doontaan ayuu wasiirku xalay toole aad moodayso inuu sii cadeeyay waa runba laakiinse waxba kama jiraan ilaa Ethiopia oo dhan Soomaalida degan waxa isku jiraan irir sagaal ugu badan dirba moogtay jooga oo irirkii kala jooga ogaadeenku waxa bay ka yihiin iyo daarooda dhab waxaan 30% ahayn marka ma Soomaaliya oo dhan baa yaacday waxa weeye uu sii hor cararay wasiirka beeruhu moogtay talabada arrimo ganacsi iyo arrimo dhaqaale ahayd yani inuu beerihiisu ka waramay waxaynu beernay Ethiopia oo meeynaan geen jirin
ka kaalay waxa weeye haddaba ujeedada ugu weyn ay ka lahaayeen nimanka ma jeerteen dagaalka inay ridaan laascaanood waxay ahayd dekedahoogaasi in markaa lagu soo yaacay soomaalida kale oo dhan dee ogaadeenka iyo wixii dee moogtay dhulbaantaan dagaalka hadda ku jira dhammaan wixii ay soo dejisanayaan oo dhan halkaa loo guuro oo markaasi laascaanood xitaa laskaga guuro oo dee kala baydh iyo ma garatay saaxdheer iyo magaalooyin halkaa laga sameeyo ayaa qorshuhu uu yahay ilaa iyo haddana puntland waxay ku adkaysanaysaa dee waa way cadaysatayba moogtay inay degtaba hadda laascaanood waana kuwan leeda calankii puntland ha laga taago ninka keliya ilaa hadda mari lahayna waa garaad jaamac garaad ismaaciil oo leh annagu dee somaliland puntland yacni haddaan puntland doonayno somalilanteeda haysan lahayne nimankiina garaadada garaad jaamac garaad caliya garaadadan kalow ma wuxuu noqday qorshihii iyo dagaalka waxaad u bilowdeenba inaad puntland ku dartaan laascaanood marka dee waxaa noo dhaantaan joogna bay ku doodayaan qolyihii jaamacsi annagoo somaliland iska joognaaba la noo qaatay marka meel ay arrin ka soo noqdaan hadda way adagta xaaladdu nimankii jaamacsiyaadna markaasi in la maquuriyaa la doonayaa durtaba moogtahay dee kufsiga gabdhaha lagu samaynayo cadaadinta iyo yacni tacadiyada ay samaynayaan nimanka ma jeerteen waa mid ku qotanta in khasab laga dhigo calankii puntland in laga taago laascaanood ayay doonayaan wixii ka soo kordhawayna barnaamijyada dambe nabadgelyo